aqlabiyadda xildhibaanada golaha deegaanka Gabiley ayaa jawaab adag ka bixiyay isla markaana gaashaanka u daruuray warqad ka soo baxday xafiiska wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland Cabdinaasir Caydiid Maxamed. Warqadaasi oo ahayd mid wasiir ku-xigeenku ku joojinayo fadhi aan caadi ahayn oo ay dalbadeen aqlabiyadda xildhibaanada golaha deegaanka Gabiley isla markaana ay damacsan yihiin inay xilka kaga xayuubiyaan maayirka Gabiley Maxamed Amiin Cumar Cabdi. aqlabiyadani xildhibaanada golaha deegaanka Gabiley ayaa warqad qoraal oo ay soo saareen isla markaana ay ku saxeexan yihiin 7 xildhibaan oo doonaya inay xilka qaadis ku sameeyaan maayirka Gabiley ayaa waxay jawaab adag ka bixiyeen isla markaana gaashaanka u daruureen warqad wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha guduhu soo saaray taasoo wasiir ku-xigeenku ku joojinayo fadhi aan caadi ahayn oo ay dalbadeen aqlabiyadda xildhibaanada golaha deegaanka Gabiley. aqlabiyadani xildhibaanada golaha deegaanka Gabiley ayaa cuskaday qodobka 7aad farqadiisa 2 ee xeer 23/2019 waxayna sheegeen xildhibaanadaasi in wasiir ku-xigeenku hore u jebiyay qodobo sharci ah kadib markii uu hore u saxeexay dib u eegistii miisaaniyadii hore ee 2021 taasoo ka hor imanaysa ayay yidhaahdeen qodobka 19aad farqadiisa 1 ee xeer 23. jawaabta adag ay bixiyeen aqlabiyadda golaha deegaanka Gabiley waxa si toos ah jawaab adag uga soo bixiyay xafiiska wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland Maxamed Kaahin Axmed waxaanay gabi ahaanba wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland joojisay qabashada kalfadhiyada aan caadiga ahayn ee golayaasha deegaanka dalka. khilaafkan adag ee soo kala dhex galay golaha deegaanka Gabiley iyo gudoomiyahooga ayaa maalinba maalinta ka dambaysa cirka isku sii shareeraya. waa Cabdirasaaq Axmed Hayaan, Universal TV, gobolka Gabiley.